السلام عليكم. barnaamijkeena maanta wuxuu ku xisaabsan yahay maxaa tahay isweydii noloshaada. Isweydii waxaa tahay noloshaada. Waa inaad isweydiisaa noloshaada waxaa tahay. Inaad yar tahay ama inaad weyn tahay waa inaad isfiirisaa marka hore. Weligaa ay adaha afiirinin nolosha qofka kaleente ama dadka kaleente. xaasid aan noqonin weligaaga xaasid aan noqonin. Noqo qofka dadka oo samadfalo ama dadka u shafeeco. Kaliya noqo qof isku filan. qof bini'aadin ah noloshaada au dhiibanin. marka go'aansato inaad howlgasho, markaas kadib ay howl kuu furmayaan. noloshaada iska soo saar waxaa tahay. dahabka ku duuwan noloshaada waa inaad iska soo saartaa. qof kasta adduunkaaga ku nool wuxuu rabaa ama wuxuu u baahan yahay noloshiisa inuu horumariyo. horta waxaa tahay isweydii adiga noloshaada inaad iska soo saarto. isku day haddaad rabto inaad guul gaarto ama hanti inaad xaqiijiso waa inaad hurdada ka sabartaa. naftaada waa inaad edeb u yeeshaa. naftaada haddaad simbiri edeb u yeelan noloshaada iidaa burburi karto. nolosha keligii waxay rabtaa waxaa waa inaad iska jiifto, iska cunto, iska cabto, iska hurdo, waxna aan qabanin. laakiin nolosha waa la edbiyaay. nafta waa la baraa waxay dhibsanayso waa la baraa inay dhibsanin. haddaad naftaada adkaawaasi runtii wax qabanaysid male. noloshaada isku maaray. noqo qof isku filan. isku day inaad weligaa allahaaya dadka ka madax banaanaato. isku day waayo noloshiina ay waxay ku dhisan tahay dhib. waayo maanta nal ilaa maalintan dhibna ku jirtid waaba nal habeenkii waa inaad seexataa. maalintiina waa inaad kasbi xalaal kasoo shaqaysataa. adduunka baa sidaas iska guul xaqiiji. isku day noloshaada inaad noqoto qof kaliya isku filan. qofkan gacantiisna suweyn. isku day inaad noqoto qof awood leh. isku day inaad noqoto qof dad kaleenta fiirinaynin. xaasidna aan noqonin. weligaa ay adagahaa noloshaada isku filnaaw. noqo si dadkii xidigaha gaariyo kaleente. haddaan nahay Soomaali runtii noloshiina waa ku dheelnaa. maanta waa aragtay inta badan dadka isticmaala social media. maanta dadka intood badan waxay u badan yihiin tiktogaas muuqaal oo waxa kasoo horbaxaya oo xadid la heenin. muuqaal oo doori karin oo isla kasoo horbaxaya. xataa heer waxaa gaaray inaad telefoon gacantaada ka fujiwaasi. waxa kaliya dhibka kaliya keenaya oo wuxuu yahay waxay tahay inaad telefoonka gacantaada ka bixin. waayo muuqaalkeena kusoo galaya. marka noloshiina gacantiina ku burburinaynaa. dadka maanta oo horumari dad oo noloshooda oo edbiyey waa naftooda edbiyey. dad oo hurdada ka qoostay. laakiin anagu Soomaali daan nahay ma jecelni inaa oo isdhibka runtii waa roon yahay. maanta dalkiina wuxuu burbursan yahay waxaa shacabkii way jeedaan. qabaa'il baa nadili maanta. hadda maanta qabaa'il kala jooji lahaa ama qabiil oo meel la dhigo lahaa, dowladda la toosi lahaa ama dowlad toosnaaleed, maanta waxaa noqdeen dad heersaar ah. dhulkeena waxaa ku duuwan macdan qaali ah iyo dahab far badan iyo nimcad oo ilaahayna siiyey. laakiin dadkiina waxay noqdeen duqumaan. dadkiina badnaankood waxay noqdeen duqunna mar oo shacabka oo noqday ama dowladda duqun ay noqoto runtii xaqiiqo meesha marka imaan karo. dalkiina maanta madaxweynihii kasta ama xildhibaan kasta wax loo dhiibo wuxuu isku dayaya kursiga inuu bogo ama inuu shacabka dhiigooda inuu cuno. haddii shacabka ay dhiigiisa cunto aadana horumar ma gaarin. aakhirana horumar ku gaarin. dadkaayna horumar ma gaarsiinin. maxaa faa'iido maanta meesha ku jirto ma ogni. dalkiina xilliyo noqon doona dal oo madax banaan ama dal oo nacfi leemis. dal oo shacabkiisa oo u fiican. dal dhismi
ma og xilli noqonto laakiin maanta waa laga yaabaa dalkiina inuu dhismo oo noqdo dal aad iyo aad u qani ah dadkiina hadda usoo diyaal oo ku jiro oo wuxuu yahay qani laakiin maanta waxaan ugu dheelaayo waxay tahay noloshiina la baabi'inaayo madaxweyneyaasha dadka lacagtooda cunaayo madaxweynihii fiican kii xun hadduu kursiyaas oo kor oo isku bedelaayo qof xun noloshiina saas iska noqotay qof kasta oo wadamaha ku nool Afrika ahaato ama Soomaaliya ahaato isku day inaad noqoto qof madax banaan wadankiisa wax kusoo kordhig karo noqo qof wadankiisa ku nacfiyo aad ku noqonin qof kaliya ah kaliistaris ama kaliisa waxa rabo inuu cuno waxa cunaysa isku day inaad ula jeclaato dadkaada iyo shacabkaada isku day waayo dadkaada maanta meel ka soo bixisay runtii bay u kan garabay ka qabdo doonaa maanta noloshiina sidaas ay noqotay laakiin in kasta noloshiina ama wadankeena oo burbursanaya maanta diyaal iyo fooda ee ka socoto waa inaan isku daynaa inaan xoog isku yeelno dhiig inaan isku kicino waxaan aan barano buugaagta aan akhrisano Soomaaliya inteena badnaan buugaagta ma akhrisano waa social media dhexdiisa ku dhex jirnaa 24 saac social media qofka samaystay waa qof noloshiisa horumariyay waa qof oo isku day inuu soo sameeyo horumar soo sameeyo maanta intaas ugu jirtay social media ku dhex jirtay maanta inta ku dhex jirtay social media qofkaas waxa uu soo dhacayso ama qofka oo social media oo leh TikTok ama YouTube ahaado faa'iido oo ku korwataa haddii kasto yar oo daciif adag oo isku dayday yani inaad ka caajisto social media wax kale cusub oo soo kordhiga oo aad yani oo telefoon gacanta ka dayeen waayo adiga meesha waxa ku baaba'ay mustaqbalkaaga indhahaaya gurigaaga xataa heer waxa gaari oo guriyay wax ka socdo wax kale ogaabaasi isku day inaad noqoto qof guul xaqiijiyo oo guul soo saaro wadankiisa iyo dadkiisana wax u taro sheekadeena maantana meesha ku ogtahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم برنامجكينا maanta wuxuu ku saabsan yahay maxaa tahay noloshaada waa inaad isweydiisaa noloshaada